maxkamadda gobolka Sool ayaa geel mag ah u kala wareejisay Cabdilaahi Cali Siciid oo ahaa aabe dhalay Allah u naxariistay wiil ay dishay koronto ay leedahay shirkadda xoogga korontada ee Lasko ee magaalada Laascaanood waxaana xukunkaasi ay maxkamaddu ku qaaday shirkadda korontada inay bixiso diyada wiilkaasi waxaana ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheekh maanta halkan waxaynu isugu nimi dacwad fulin ah oo laba garab ka dhaxaysay garabka wax loo haystay oo ahaa shirkadda laydhka ee Lasko oo diyo ku bixinaysay halkan wiil uu qabsaday laydhku hore maxkamadda gobolku ay u xukuntay dacwadaas wax qaab ahayd oo laga xukumay diyadaas oo lagu yeeshay mulkiilayaashii lahaa shirkadda laydhka ee Lasko waxa halka jooga labadii dhinacii diyada la siinayay oo ah Cabdilaahi Cali Siciid oo loo soo tubay maanta halkan 100 halaad oo geel ah mag sharci ah sidii sharciyada islaamku ay ka xukuntay diyatul mukhaffafa ayaa 100 halaad halkan loo soo tubay Cabdilaahi Cali Siciid oo ay Lasko ku wareejinayso maxkamadda ay u kala marinayso Cabdilaahi wuu qaatay 100 halaad sidoo kale waxa ka hadlay aabaha dhalay marxuumkaasi dhintay waxaanu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu helo xaqii wiilkiisa geeli maanta halka waxa la isugu yimi la kala wareegii geeli wiilkaygii Cabdishakuur Cabdulaahi Cali oo ku geeriyooday shil koronto oo ay leedahay Lasko hawsha Rabbi subhanahu wa ta'ala ilaahay baan ku mahadinayaa in xaqii wiilkayga maanta la isoo wareejiyo marka koowaad Rabbi subhanahu wa ta'ala baan ku mahadinayaa waxaan mahad badan u jeedinayaa ma bacdi qof kasta oo islaam aha oo jeclaa in arintaasu ay si xaq ah oo sharciga ilaahay waafaqsan ay ku dhammaato iyana dadkaas mahad bay leeyihiin waxa weeyaan waan ku mahadinayaa arinta waxana ilaahay u aqbalay niyadoodii wanaagsanayd ee ahayd in si xaq ah loo kala baxo wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadle waan mahadinayno maadaama aynu joogno goob lagu kala baxayo oo dad xaq isu galay ay maanta ku kala xaq baxayaan oo aanay waxba la kala tagaynin ilaahay baan subhanahu wa ta'ala ku mahadinaynaa oo waliba sida ay u kala xaq baxayaan ay tahay sifo sharci ah maxaa yeelay sharciga marka la fulinayo waa arrin weyn oo maaragtay koonkeennan runtii ku culus geestiisa waxa ka hadlay mas'uul ka socday shirkadda Lasko waxaana hadaladiisii ka mid ahaa marka geela annaga ayaa bixinay haddaan nahay shirkadda Lasko maxkamadda ayaa xukuntay geelu 100 buu ahaa safay kala saartay gabagabadii waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool ahna kusimaha gudoomiyaha waxaana uu sheegay maga Laska wareejinaysa waxa la wareeyay Cabdilaahi Cali Siciid la wareegaya si gobolnimo leh si sharaf u qaatay wax ugu duceynaa khayr badan Allah geelaas Ilaahay u barakeeyo ugu duceeyo fatxada ugu mara Mawlid Ali Star TV Laascaanood